بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها وزيرك ودوينك iyo horumarka gaadiidka iyo horumarka wadooyinka gudoomiyaha bangiga taliyaha ciidamada gudoomiyaha gobolka madaxda kale ee faraha badan leh halkan fadhida saraakiisha gidigima waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. madaxweyne waxaan jecelahay marka ugu horeysa inaan ku hambaliyeeyo wasaaradda iyo hay'adda horumarka muuqda ee la taaban karo ee qiimaha leh ee muuqda ee saaka aynu soo aragnay aad baynu ku hambalyeynaya. waxaan kaloo jecel halkan uga mahad celiyo hay-adaha gacantii naga siiyey arrinkan sida GIZ-ka hay-adda DFID iyo shirkadaha iyo laftigoodu qeybta ka qaatay dhismayaasha sida najax oo kale aad bay u mahadsantihin. madaxweyne markaad waddan aad tagto ishaadu waxay qabataa kaabayaasha kaabayaal waxaa la isku yidhahdaa waa wadooyinka eerboorada madaarada maxaa dekadaha isgaarsiinta biyaha korontada intaasaa guud ahaan la yidhahda iyo dhismayaasha ayaa la isku yidhahdaa kaabayaal. kaabaha ugu muuqaalka badanna waa waddada. waxaa runtii laga qiyaas qaataa waddanka heerka horumaru gaadhay wadooyinkiisi. wadamo waddanku ka wadooyin badan yahay uu ka wadooyin wanaagsan yahay uu ka horumarsan yahay. marka runtii horumarka aynu sameynay haddii la reer Somaliland waxa ka markhaatiya horumarka aynu ka sameynay xagga wadooyinka oo hay'ad iyo wasaaraddu ay runtii ka yihiin hormuudka ay ka yihiin. madaxweyne wadooyinka ahmiyadoodu waxa weeye waxay isku xidhan haddii imika dhaqaaluhu noqon lahaa noole wax nool hadduu noqon lahaa haddii goobaha wax soo saarka iyo magaalooyinka ay halboolayaasha noqon lahaayeen wadooyinku waxay noqon lahaayeen xididada isku xidhan. haddaan xididadaasi aanay jirin dee halboolayaashu ma shaqeeyeen. marka ahmiyadda ugu weyn runtii taa weeye waddadu waxay isu keentaa halkii wax laga soo saaray ama qofkii wax soo saaray iyo qofkii isticmaalayay ama qofkii quudanayay. waxay u suurtagelisaa shaqaaluhu inuu shaqadooda tago, waxay u suurtagelisaa ardaydu inay waxbarashadooda iyo iskuullooda ay tagaan. waa runtii waa shay aan marnaba laga maarmi karin wey. madaxweyne fawaaidka waddadu ay leedahay ka soko waddo walba marka la dhisay laftigeeda waxay leedahay dhibaatadeeda leedahay. waddada farta marka laga qaado isla markiiba waxa bilaabmaya baahideeda dayactir baa bilaabmaya oo haddana dee sidii loogu talagalay loo dayactirin waddadu muddo yar baa laga yaabaa inay ku baabaado iyadoo hawl badan iyo kharash badan ay galeen. madaxweynada laftigeeda waddadu waxay ku leedahay saameyn bay ku leedahay deegaanka. waddo walba waxa ay ka samaysan tahay waa ciid iyo dhagax. ciid iyo dhagaxa deegaan nool baa laga soo jafay oo laga soo qaaday oo dee dhaawac baa loo geysanayaa runtii deegaanka marka la dhisaayo. marka kalena madaxweyne waddadu waxay dhiirigelisaa deegaameynta dhiirigelisaa tuulooyinka iyo magaalooyinka ayaa runtii ku bata. waddooyin kaloo yaro ayaa kusoo xidhma. waddooyinka yar kusoo xidhmaya waa kuwa runtii halista ugu weyn ku haya maxaa dhahay deegaanka. haddaad madaxweyne waddanka aad marto meel walba doox baa ka samaysmay, dooxaasuna xagaaf buu ka samaysmay. marka waddooyinku dhibaato weyn bay ku hayaan runtii xagga deegaanka ilaalintiisa marka runtii marka la eego. marka madaxweyne waxaa loo baahan yahay xeerarkii maareyn lahaa waddooyinka hadday tahay dayactirkooda, hadday tahay gaadiidka maraya, xagga pollutionka, hadday tahay xagga accidentska. marka waxaa loo baahan yahay in waddada laftigeeda uu barbar socdo xeerkii lagu ilaalin lahaa waddada laftigeeda laguna badbaadin lahaa deegaanka iyo dadka laftigiisa. madaxweyne hay-addani waxay u xil saaran tahay waddooyinka isku xidha magaalooyinka. marka maadaama runtii guul ka gaadhnay isku xidhka magaalooyinka malaa way fiicnaan lahayd hay-ad sidan oo kalena in loo sameeyo magaalooyinka ka shaqeeya waddooyinka magaalooyinka laftigooda. haddii hay-ad loo sameeyo laga maalgeliyo cashuur dheeraadoo laga qaado amba u gaaroo laga qaado waddooyinka magaalooyinka amba dadka deegaanka degan ee magaalooyinka degan. malaa waddooyinka magaalooyinka iyo laftigeedu siday noogu qurux bateen magaalooyinka waddooyinka udhexeeya magaalooyinka magaalooyinkana way noo qurux badan lahay. waa imika mashaakil ugu weyne runtii ishu markiiba qabanaysa ay arkayso markaad magaalo timaada waxa weeye waa xaaladda waddooyinka ee ka jira. marka insha allah taana waynu iska gaari doonaa. waxaan mar kale u hambalyeynaya madaxweyne wasiirka iyo wasaaradda iyo hay-adda iyo shaqaalaheeda iyo intii gacan ka siisay arrinkanba aad iyo aad baa mahadsan.